السلام عليكم سودو هذا كلاس كيني انجليش كها عشر كمان تايم بران او past continuous tense form هم قاب قوسم اسمه affirmative كي subject قوسم اسمه subject plus ولوكي was were and was somewhere plus verb plus ing. She was cooking all morning. waxay karinaysay subaxdii oo dhan waana past continuous waa wax tagay oo socda. Negative waa dhacay mar hore oo hadda socda wali. Negative diidmo markaynu ka dhigano waa subject was ama were plus not plus verb plus ing verbkii watay ing-ga. She was not sleeping when he came home. She iyadu was not sleeping may hurdin when he came home markuu guriga yimiday. Interrogative was she sleeping when he came home? miyay hurday markii uu yimiday guriga. wuxuu ku samaysmay was ama were kalba wax ku xidhan tahay la isticmaalayo plus subject plus verb plus ing. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada classkeeni English ka ahaa waxaynu socday past continuous tense usage sida loo isticmaalo examples tusaalayaal time expression iyo muujinta waqtiga. Interrupted action is in the past waxaa loo isticmaalaa ficilada go-ay waqti tegay. They were waiting for train when I spoke to them. Train ayay sugayeen markii aan la hadlay iyaga. When markii time expression while intii constantly waqti cayiman at that time waqtiga in those days maalmahan. Parallel actions ficilada isbarbar socda. tusaale I was studying waxbaan baranayay when my mother was watching TV markii hooyaday daawanaysay TV-ga in those days maalmahan. time expression loo isticmaalo past continuous tense. Story background taariikhda marka laga hadlo taariikhda sheekada. While I was driving markii aan gaariga waday to work yesterday shalay markaan gaariga shaqada u waday. all the morning subaxdii oo dhan. Past habits hobiyada macadooyinka waqti tegay. I was always cooking badanaa waxaa cuntadaan karin jiray when I got home from the school markaan ka imaado iskuulkeen guriga imaado. for hours saacado time loo isticmaalay ka mid yihiin always waxay ka mid tahay time expressions. Specific time as an interruption waqti tegay waqti cayiman oo tegay go'ay. last night xalay at 6
p.m. لحدي habeenimo I was eating dinner. أنتو أيان عنايين.